بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Muqdisho, marka hore iga guddooma salaan gacaltooyo oo huwan ixtiraam iyo qadarin badan. Marka labaad waxaan idin leeyahay hambalyo. waxaad qorteen taariikh cusub, waxaad muujiseen sabir, adkaysi iyo geesinimo. waxaad dib u soo ceshateen xuquuq dastuuri ah oo aad weydeen ama idinka maqnayd in ka badan 56 sano, taasoo ah in aad qofkaad rabto doorato ama adiga lagu doorto. waxaad ku cilbaxdeen codkiina, waxaad dalka u jihayseen hilinka toosan ee dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. waxaan idin leeyahay hambalyo, ilaahay baana ku mahadsan. waxaan u hambalyeynayaa ururada siyaasadda ee ku tartamay kuraasta golayaasha degmooyinka gobolka Banaadir. ayaga ururada ah iyo xubnahooda tartamayba waan u hambalyeynayaa. waxaan ammaan, bogaadin iyo mahadcelin weyn u soo jeedinayaa ciidamada amniga iyo taliyayaashooda oo suurto geliyey in ay doorashadu ku dhacdo si nabada, degan oo kalsooni lagu qabo. waxaan sidoo kale mahadda u celinayaa iyagana guddiga doorashada oo hirgeliyey doorashada. cid kasta oo ku fakeraysay ama rumaysnayd inaan dalkan aysan ka dhici karin ama laga qaban karin doorasho qof iyo coda, cid kasta oo quudaraynaysa ama hunguri ka hayay dib u noqosho iyo doorasho dadban, cid kasta oo aaminsanayd in ay marin habaabin karto shacabka Soomaaliyeed, maanta wixii ka dhacay Muqdisho ayaa jawaab ugu filan. waxay dadka Soomaaliyeed ka sugayaan